الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. سورة النساء. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. الحمد لله والإله ما ديسكله سبحانه وتعالى نوغل هذي إن حقنا نسكو دردارنو، لأن حقا إمام النبوي وباويستي كتاب كيسي رياض الصالحين وكوا بيستي وباب أيوة قد اكتمارتها باب حق الجار والوصية به حق الدرسك يلي سكو دردارمو أيوة باب قد وأرن وين ولا للمركة. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس كريم كاوحو كل يهي واعبدوا الله ضلوا إلهي عابدا ولا تشركوا به شيئا إلهينا وحل وذا جننا وبالوالدين إحسانا والد كان بارئ النقضاء إحسان أسمية وبذي القربى قرابضنا إحسان أسمية واليتامى أقومضنا إحسان أسمية والمساكين مساكينتنا إحسان أسمية والجار ذي القربى درسك كيس دونا أسمية إحسان والجار الجنب كيس فوق درسك كيس فوقنا إحسان أسمية والصاحب بالجنب صاحبك دنع كوها ينا أسمية إحسان أسمية وابن السبيل مسافر كان أسمية إحسان وما ملكت أيمانكم وحق عميهن أيهانتين وأدومية وحي لمدان إحسان أسمية الله كم إمسو إلهي إحسان كأدر دار من الله أسمية والله. النبي صلى الله عليه وسلم وحول لي هاي حديث عبد الله بن عمر يا عائشة أمنا عائشة لبض بأي ورين أيان الله كرى لنا وضلبضوا ذي. النبي صلى الله عليه وسلم وحويري ما زال جبريل كما نزول يوصيني بالجار إنه درس يقدر دار مايو حتى ظننت أنه سيورثه إلا أن لي بالدرس كي يسدحلايان. نبي جبريل عليه السلام إن بدنوا كلا دردار من درسك نبي وحي روحان لينا ييبا إن درسكو حتى دحلكو ما ركتا إسدحلايان حتى ماشي لقارسيي واي درسك النبي صلى الله عليه وسلم لو لا دردار مي dhaqan oo idil kiisa wanaagsan waxaan oga dayaneynaa maaragtay nabiga sallallahu alayhi wasallam dhaqan xun shaydaan ayaa wata waan ka fogaanina dhaqan lagu daydo oo wanaagsan nabiga alayhi salatu wasalaam ayaa looga dayanaya. ilaahay wuxuu leeyahay rasuulkiina usoo xasan ayaa idinkugu sugnaatay. nabiga wuxuu leeyahay waxaan u maleeyay jibriil sidoo dariska igala dardaarmay inuu dariska isdhaxlaayo. markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam amarka la siiyo ayuu inuu fuliyo dadkana uu amro ayuu nabiga bilaabay alayhi salatu wasalaam. markaas nabiga wuxuu yiri Abaadar al-Ghifaari xadiis uu warinayo Abaadar wuxuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu yiri ya Abaadar idha tabakhta maraqatan maraq hadii aad karinayso fa akthir maaha biyaha u badi maraqa biyihiisi badi wa taahad jiiraanak dariskaaga barbaar oo la raadi dariskaaga gaarsii dariskaaga ka warqab maraqa aad karinayso kaliya ha isku ekeeninay dariskaaga ka warqab. laakiin maanta ma inaad maraq kariso ayaa dariskaaga inaad u gargaraacdaa leedahay maraqii aan karsaday la qaybsada haba lagu leeyahay nugma maarta waa sixirool sumbu ku soo daray. dadkii maanta waa kala fiigsan yihiin nin walba ninka kale uu ka shakisan yahay nin walba gobol inuu wataa biyahaasiisu ku miira shaaha asiisu ku miira waa la is-aamini la yahay. حق حقوق الجورمال لا فيريا مركي دad ku horta dad walaalo inay yihiin isku aaminsan laakiin kan wuxuu aaminsan kan inuu dil raw kan aaminsan kan kale wuxuu aaminsan inuu dil raw laba kala shakisan sidee wax ma aragta u kala qaadanay walaal maanta markii ahadiithii iyo aayaadkii iyo sunnadii nabiga kaleey salaatu wasalaam kitaabka quraanka markii laga fogaaday dadka maanta waxay noqdeen darajadii ay lahaayeen ibni aadamnimada way ka tageen darajadii waxay gaareen xayawaanka uu lahaa ay maanta ay gaareen xayawaanka
حيوان كلو اسك إلاليا وكعب صدا وحسليه هدي وكأود يريهي وحليه أمو كعنا كان أود دوينا وحقو غار صدا مثل ما أركتاي كأود ير سيدا ما أنت بنهدك سيدا نقدم الله دنبيين الله راف سأل لي النبي صلى الله عليه وسلم وحيري أبا ذرو haddii aad maraq kariso oo ilaahay uu ku siiyo waxa karsato maraqaaga biyaha u bad dariskaagana ku raadi dariskaagana ka barqabo yiri nabi sallallahu alayhi wasallam sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhaartay hadith Abu Hurayra uu warinay nabigu wuxuu yiri wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min Allah muxuu nabiga la dhaartay iimaan darada lagu sheegay maxay tahay qofkaas wuxuu yiri nabiga wallahi iimaan ma lahan iimaankiisu kaamil ma ahan والله إيمان ملهن إيمان كيس ماشي للرب مجارين والله إيمان ملهن صدق جرمكو كعلي نبيك صحابة ويدين وحيكونهن قيل من يا رسول الله نك إيمان دردا قوي إيمان كيس وسلا ويريهي يا ويا رسول الله كاس النبي وحيري الذي لا يأمن جاره بوائقه مثل الدرس كيسا أين كم ينقلين شرتيس أين كامل نقنين ويري النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدرس كيسا أين ما ركتاي كامل نقنين أين كنا بتقلين شرتيسا نكا ويري النبي صلى الله عليه وسلم البوائق وحويان الغوائل والشرور وحيابها قيانada iyo dhibka iyo sharta iyo falxumada oo dariska ma aragtay maanta lagu hayo walaalay dariskaagu waa ina ka dhowrtaa biyaha bulaacada ee aad ku soo fasaxayso waa ina ka dhowrtaa dariskaaga waa ina ka dhowrtaa dhalada ku daaran ee aad ku dheereynayso raadiyaha iyo sameecadaha aad ku dheereynayso waa ina ka ilaalisaa dariskaaga caruurtaada hadii ay dhagaxeenayaan waa ina ka ilaalisaa dariskaaga hadii qaaci wax la mid aad shidato waa ina ka ilaalisaa dariskaaga wax walbo adiga aad dibsanayso waa inaad u fiirisaa oo aad ka ilaalisaa maxaa yeelay Soomaaliyeena waxay dhahdaan adduunyo waa daris aakhirna waa daris sallallahu waa lagu weydiinaya xaq uu kugu leeyahay dariska xaq gar ma walaalay wuxuu gaarsiiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam in uu dhaho xadiis uu warinayo Abu Hurayra isla sidii oo kale nabiga wuxuu yiri yaa nisaa al-muslimaat gabdhaha muslimaadka ahaw wargaab gabdhaha muslimaadka ahaw oo diinta islaamka una sab sheeganayo لا تحقرن جارة لجارتها جبر أو درس جبر كلا أو درس لا ينا كحينا أدين ينا معركتاي حقرن ولو فرس نشاط لقطة معركتا أرجع مديسا مجنتا أرجع حتى هدي معركتاي ما أنت جورجاين لكانوا درس كاي حقرن وجارسيو لين صلى الله عليه وسلم وامجن ما أنتو حلاقة يا با إن درس يجيل غشان درس كلامه واحد جارين وايد على مركز قاب الدرس وما أنت ما رأيتاي أمور وحقوق قبو درس كلامه وسكباهي ليس كما ورقبو ليس ما سؤاله حبل اسمه ويديه وين ما أنت دتك درس كا فهمان حقوق ذي درس كله وين يفهمه ولا أمنا عائشة حديث ورينا يسوي حلا أمنا عائشة رسول كان ويديه درس كمركي أوامر الدرس كل ما نيسا حديث آيات كالنبي صلى الله عليه وسلم كهاللايو أو درس كهاللايو مركي أي باتين عائشة نفتر كذا وحي كمد دتك وقول رقم كفيعا حق إسلام هو يديني واي حاسك النبي واي وعالمة دي دمر كواي وحي تري رسول كان سؤال ويدي وعني يا رسول الله إن لي جارين لبدرس أيان إيسوق ناضي وأن ليه فإلى أيهما أهدي لبضا كيبان وح أهدي قال النبي وحيري إلى أقربهما منك بابا كان كوغو الباب كدو كاس أهر مريو يري حق كاسا ماركتاي ما أنت لكن waxaa dhacaysa in dariskan kugu dhagan waxaan la siinin kan qolka labaatanaad ama guriga labaatanaad degan la siiyo oo la dhaho ma taqaana maya ilma adeer baana qabiilka maanta waxa diinta agteena maanta way ku liidataa walaal marka waxa la rabaa inaan ilaahay ka cabsano xuquuqda iyo waxa na soo gaaro oo diiniga ana walaal inaan dabaqo